وانا سلام لما اصحاب فرن جنال كان مولي بان جنال maanta waxaan ku doonaa sida aan u dhib gareeyo sawiradeeda magacaygu waa Maxamed Liibaan waxaan ahay content creator waxa channelkan ku soo upload gareeyaa casharo ku saabsan filmmaking iyo graphic design ka channelkeena ugu dambeyn waxa xirnay wuxuu gaaray 1000 subscribers marka hore waxay mahad u sugnaatay Allah oo inoo suurto galiyay in heerkan maanta taaganayna soo gaarno marka labaad adigan hadda i daawanaya oo rukuntay channelka ama subscribe gareystay wad ku maasan tahay waxaan u mahad celinayaa asxaabtii maalmihii u dambeysay ku soo biiray channelkeena waliba sida xawliga ahayd asxaabtii hore inoo la joogtanay waxaan leeyahay runtii waa maasantiin oo channelkan wad la soo jabhadaysiin insha Allah muuqaalka xiga waxaan kaga hadli doonaa Q&A ama su'aalo iyo jawaabo haddii ay jirtay su'aal madaxaaga ku wareegayso oo aad jeclaan lahayd in aniga u weydiiso ku saabsan channelkayga ama aniga giirka aan isticmaalo anyway su'aal madaxaaga ku jirtay oo aad jeclaan lahayd in aad weydiisay qaybta hoose ee commentiga muuqaalkan igu soo weydiiyay waxaan kaga jawaabi doonaa su'aalihiina muuqaalka soo socda hadduu Ilaahay idmo aan u soo gudubno muuqaalkeena maanta oo ah sida aan ugu dhigreeyo sawiradeeda intiina ila socotay Instagramkayga hadii aad soo follow gareeyeen halkaan aad ku soo dhigi doonaa iga soo follow gareey waxa halkaas ku soo upload gareeyaa tricks iyo tips iyo behind the scenes mararka qaar ayaa soo geliya halkaas toddobaadkii hore Instagramkayga waxa soo geliyay sawirka halkaan aad kaga jeedaan asxaab badan ayaa isoo weydiisay sawirkaas software-ka aan ku edit gareeyay ama inaan isticmaalo LUT iyo in kale sawirkaas aad soo aragteen maanan isticmaalin wax LUT ah kumaan edit gareenin Lightroom inta badan asxaabta waxay lahaayeen Lightroom aad ku edit gareysay sawirkaas waxaan ku edit gareeyay Photoshop maanan isticmaalin LUT oo kaliya waxaan ku edit gareeyay Photoshop Camera Raw maanta ayaan ku tusi doonaa waxba ayaan war kugu soo dheereenin in keena software-ka marka aan soo furno Photoshop-ka sawirka aan tusaale ku tusi doonaa maanta waa sawirkan waxaan leenahay horta ugu horeen Ctrl J aan leenahay duplicate ayaa ka sameysanaynaa marka xigta waxa sameeynayna waxa tagaynaa camera raw filter ayaa isticmaalay sida hore kugu soo sheegayba sawirkan sida ay kaga jeedid waxaan rabnaa inaan ka dilno background-ka qaybta dambe dhan oo aan ka dhigno wax color la'aan ah hadda waxa kaga jeedaa inuu dhowr color ku leeyahay gadaal tusaale ahaan blue ayaa ku jiro sawirka cagaarna wuu nooga muuqdaa gadaal marka sawirka duplicate gareysatid Ctrl J aad leedahay marka duplicate gareynaysid filter aad tagaysaa camera raw filter aad ka sii tagaysaa camera raw filter marka ka tagtid waxa ka sii tagaynaa camera raw filter asagana HSL tabka ah ayaa ka sii tagaynaa HSL marka ka sii tagana waxa ka sii tagaynaa isla asagana hue and saturation and luminance ayuu ka leeyahay saturation ka ayaan tagaynaa saturation kiisa marka tagana waxa u soo dadigaynaa qaybtan hoose sida sawirkan kaga jeed cagaar iyo blue ayaa ku jiro waxaan sameynaynaa cagaarkaas iyo waxaan dilaynaa iyo blue greenka waa kana all the way down hoosgii ayaan leenahay blue isna waa kana asagana hoosgii ayaan leenahay hue nagii asna aan dhahay hue nagii asna cagaarka ayaa ka dilaynaa orangeska waa dilaynaa orangeska aan dhayne yellowga ayaan dilaynaa sida sawirkan kaga jeedid wuxuu u baahnay kalarada gadaal kaga jiray inaan kalaradaas ka dilno ama aan meesha ka baabi'ino wuxuu gadaal ku watay sawirkan qeyrkii oo buluug ahaa iyo geedo oo ka dambeeyo cagaar ahaa waxa sameeyay wax kale ma sameeynin buluugi ayaan down geenay 0 ayaan geenay greenki asna cagaarkiina hoos ayaan geenay sidoo kalena yellowgiina asagana waa dilnay daasid marka waxa kale oo sameeysanaysa wax yar oo sawirka nash ah contrastiga wax yar ayaad ku badsanaysaa highlight-ka wax yar iska yaree fibrinousagana u soo deg asagana yar saturation-kiisa ka yara dhin okay waan dhameynay sawirkeena waa inta siro fudud halmaamni inaan Instagram-kayga iga soo follow gareyso aad su'aal igu soo weydiiso qaybta hoose comment-ga muuqaalkan si aan kaaga soo jawaabo muuqaalka soo socda oo ah Q&A intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa stay creative guys My life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
Yeah.